ma rumaysan kartaa in qofka aad cuntada siiso gurigaaga dejisayna uuna yahay qofka qorsheenaya inuu ku dilo? toddobaadkan booliska gobolka Florida waxa ay gurigii qoys caan ah ka heleen wax laga naxo. Qoyska Milleris waxa ay muddo hal sano ah guriga ku hayeen nin dhalinyaro ah oo ay moodayeen inuu yahay qof baahan oo ay caawinayaan, laakiin sirtii ay ogaadeen habeenkii Axadda waxa ay noqotay mid caalamka oo dhan ka naxisa. Haddii aad qof aanad aqoonin gurigaaga keenayso, muuqaalkan daawo inta aadan go'aan gaarin. Qoyska Milleris waxay ahaayeen qoys degan oo naxariis badan. Sanadkii 2025 waxa ay baraha bulshada ku barteen nin dhalinyaro ah oo sheegay inuu lumiyay qoyskiisii iyo hantidiisii. Iyadoo ay ka tahay naxariis, waxay u ogolaadeen inuu dego qolka hoose ee gurigooda. Ninka wuxuu ahaa qof aad u aamusnaan badan, mar walbana caawiya qoyska, carruurtana la ciyaara. Waxay u haysteen inuu yahay malaa'ig loo soo diray, laakiin bilowga 2026 aabaha guriga ee la yiraahdo David ayaa dareemay wax yaab leh. Maqaasiinka waxaa ka imaanayay ur aad u xun. Ninkiina wuxuu diiday in qolkaasi la galo, isagoo sheegay inuu isaga nadiifinayo. habeenada ka mid ah, ninkii waa uu baxay. Davidna wuxuu isticmaalay furo kale si uu qolka u galo, laakiin naxdintu waxa ay timid markii uu ka dhex helay qolka sawirada qoys oo dhan oo mid kasta indhaha laga bixiyay, iyo qorshe u diyaarsan sidii uu qoyska oo dhan u dili lahaa habeenka dhalashada gabadhooda yar. Markii booliska yimaadeen, waxay ogaadeen in ninkani uusan ahayn qofku uu isku sheegay. Wuxuu ahaa dambiile caalami ah oo muddo 10 sano ah laga raadinayo dhowr waddan, kaasoo caado u lahaa inuu qoysaska isku dhow dhex galo kadibna hal mar wada baabi'iyo. Qoyska Milleris si dirqi ah ayay ku badbaadeen, laakiin naxdinta ay dareemeen weligood kama baxayso. Sheekadani waxa ay noqotay mid caan ah 2026, waxayna cashar u tahay dadka naxariista badan ee internetka dadka ay ku bartaan gurigooda keena. Daawade, maxaa samayn lahayd haddii aad ogaan lahayd in qofka aad caawinayso uu yahay cadowgaada koowaad? Kommentiga ku soo qor ra'yigaaga. Subscribe na channelka.